booqashada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalkani Turkiga waxay ahayd mid si weyn looga dareemayay isla markaana waxay cabsi ay ku beertay dalalka aan rabin inay Soomaaliya ay degto. madaxweyne Erdogan madaxweynaha Turkiga ayaa qasriga madaxtooyada waxa uu ku qaabilay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyagoona qaatay kulan albaabada u xirnaa iyadoona qodobada laga hadlay laga xusi karo sida dawladda Turkigu ay diyaar ay ugu tahay inay garab istaagto shacabka iyo waliba dawladda Soomaaliya. arinta khaliijka ee Soomaaliya ay dhexdhexaadka ay ka noqotay ayaa lagu amaanay dawladda Soomaaliya iyadoona tan iyo shalay markuu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu yimid waddankan Turkiga kulamadiisu waxay ahaayeen kuwa isa saaran waxaana la kulmay ra'iisul wasaaraha Turkiga madaxweynaha Turkiga iyo wasiirka arrimaha dibadda oo isagu yimid hoteelkii uu degnaa ra'iisul wasaaraha iyadoona kulamadaasi oo dhan ay ahaayeen kuwa guula ku soo dhamaaday. booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee Turkiga ayaa waxa uu sidoo kale ajandaha uu ku darsaday inuu arko dhaawacyada iyo waliba xaaladda ay ku sugan yihiin. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa mid u dul istaagay bukaanada isagoona su'aalo weydiinayay sida uu xaalkoodu yahay iyo waliba waxa ay dareemayaan. mararka qaarna waxa loo jeeday ra'iisul wasaaraha oo dhegta u raaricinaya bukaanada aan hadli karin. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ يا ولادي. السلام هي. شو أنت؟ والله. أيه. تعال تعال فوق الكون يعني إذا شكلية أو تلفزيون جديد. أيه. أبي أقول banaanka cisbitaalka ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu kula kulmay dad shacab ah oo doonayay inay arkaan balse mid ka mid ah hooyooyinka ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa ay ka codsatay inay la hadasho waa uu ka aqbalay dhibkeeda ayay u sheegatay kadibna maxaa dhacay. ما شاء الله ما شاء الله dadka Soomaaliyeed dhowr sano ayay ku soo daaleen oo ay arkeen madax dhib loo sheegto haddana yiraahdaa hebel ayaan kala balamayaa sida ay hooyadani sugaysay balse ma dhicin oo ra'iisul wasaarihii ayaa waxa uu yiri aniga ayaa bixinaya kadib ayay isku duubtay waa ayna ilmaysay. wasiirka caafimaadka ee dawladda Turkiga ayaa aad ugu mahad celiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre booqashadiisa dhaawacyada halka Khayrana uu dawladda Turkiga iyo waliba wasiirka caafimaadka Turkiga uu kaga mahad celiyay wanaaga ay Soomaaliya ay u sameeyeen oo abaalkoodina ay gudi doonaan. سلمان جمال سعيد تي في عالمي يونيفرسال مجلة أنقرة.